ومن والاه أما بعد ولا ليال meel kastoo joogtaanba dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. intaa kadib shayga la yidhaahdo waxbixinta ama deeqda iyo sadaqadu waxay leedahay noocyo kala duwan, qayb waajiba iyo qayb sunnaa labadaba way leedahay. waxyaabaha aynu bixinayno qaybaha waajibka ah waxaa ka mid a masaariiftaynu siinayno iyo biilka aynu ehelkeenna siinayno. sadaqana way tahay oo inaynu sadaqo niyoonno weeye, waajibna way tahay oo qof walba waxaa lagu hadlaynayaa ciddii uu ka mas-uulka ahaa. sadaqooyinka waajibka ah waxaa ka mida sakada oo wakhtiyadan baahidu ay jirto ay tahay in dhaqso loo bixiyo oo aan la hakinin. markaa qur-aanku sadaqu ku tilmaamay inama sadaqaatu lilfuqaraa ilaa aakhiri alaaya. waxaa ka mida jihaadka waxa lagu bixinayo sadaqo waatay waana waajib. waxaa ka mida dadka gaajadu ay hayse ee gaajo khatar ugu jira in iyagana la badbaadiyaa waajib bay tahay. waman axyaaha faka'annamaa axya annaasa jamiican, qofka qof nooleeya ee gaajo ka badbaadiyay iyo dhibaato haysatay dadkii oo dhan inuu nooleeyay bay ka dhigantay. waxaa ka mida nadarka oo hadduu qofku ku nadar ku galo oo idhaahdo ilaahay wuxuu igu leeyahay oo uu isku waajibiyey inaan waxaa bixiyo, waajib bay ku noqonaysaa. waxaa ka mida martida marka ay ku yimaadaan adigoo meel cidlaa jooga inaad wax siiso oo aanad gaajada ku eegin waa faral. waxyaabahaasoo dhan waxay ka mid yihiin sadaqooyinka waajibka ah. sadaqada inteeda badani waa sunne. waxaa jira markaas sadaqada xigmado ama sir ku jirta oo shay walba hadaf iyo ujeedda laga leeyahay. xigmadda koowaad waxa weeye inaynu xaqiijinno addoonnimada aynu ilaahay addoommo u nahay oo amarkiisa aynu qaadanno. dee intee oo aayadood iyo intee oo xadiid ba ayna faraya waxbixinta. sidaa daraaddeed qofku marka uu gacanta fidiyo ee waxbixiyo amarkii ilaahay buu qaatay, addoonnimadiina wuu oggolaaday. waxaa ka mida shukrulmacruuf aw shukru nicma. nicmada ilaahay uuna siiye faraha badan baynu ka mahadnaqaynaa. wa anfiquu mima jacalakum mustakhlafiina fiih, wixii aan idiin dhiibay wax ka bixiya baa ilaahay wuli. markaa qofku kolkaa uu waxbixiyo deeqdii ilaahay uu siiyey buu ka mahadnaqay. xigmadaha ku jira waxaa ka mida tadhiir min ashuux, bakhaylnimada ilaahay naga nadiifiyaa oo cudur waliba daawuu leeyahay. adagnimada iyo laxajeclaxumada iyo bakhaylnimadu waa cudur weeye, dhinacyo badan dhib ku leh. markaa waxyaabuhu ilaahay kaga daweeye waxaa ka mida qofka sadaqada. waman yuuqa shuxa nafsihi fa ulaa'ika hum ulmuflixuun, qofkaasi waa qof liibaanay baa ilaahay wuli. bakhaylnimada ilaahay uu ka nadiifiye. markaa sadaqada dawo ka ah. asraartiiyo xigmadaha ku jira waxaa ka mida waa takhalluq biakhlaaqi illaah. ilaahay akhlaaqdiisii baynu ku dhaqmaynaa oo nebiguna wuxuu ina faray sala allahu calayhi wasalam akhlaaqda ilaahay inaynu qaadanno oo istiqnaa cani ilmaal weeye. ilaahay wixii ka soo hadhay oo dhan wuu ka maarmay. marka adiguna wixii aad haysatay marka aad bixinayso akhlaaqdii ilaahay wanaagsanayd ayaad qaadatay. waa cilaaj lilqalbi min xubbi dunya. qofka bani aadamkaa waxa iskaga buuxsan oo aad uu u jecel yahay adduunyada. markaa kolkuu adduunyadii uu aadka u jeclaa iska fujiyo wax dhiibo, waxa ay ka dhigan tahay inuu tanaasul ka sameeyo jacaylkii adduunyada. wa kaana alinsaanu qatuuran, qofka bani aadamkii waa mid qallafsanoo adayga baa ilaahay wuli. adaygnimadaa ku dallacnayd buu qofku iska dejiyey. waa mujliba lilmaxaba. waxaynu isku jeclaanaynaa had iyo jeer waxbixinta. dadku marka ay waxisa siin waayaan way isnacaano way iskaraahaystaan, laakiin marka ay waxisa siiyaan way isjeclaadaan. jubilat ilanfusu bixubbi man axsana ilayha. naf walba waxa lagu abuuray qofka u samafala cidduu doonaya ha aado qofkuu iska jeclaadaa. marka waynu doonaynaa, waynu u baahanna islaamkuna uu ina faray inaynu iswada jeclaanno. waa tadhiirun lilnafsi waalmaal. qofka iyo xoolihiisaba ilaahay wuu ku nadiifiyaa sadaqada. waxyaabaha lagu maydho weye, jidhka waxbaa lagu maydhaa, dharka waxbaa lagu maydhaa. markaa maalka iyo ruuxdana waxaa lagu nadiifinayaa sadaqada. khud min amwaalihim sadaqatan tudahiruhum watusakiihim biha wasalli calayhim ina salaataka sakanun lahum.
ka qaad baa ilaahay uhi sadaqo aad ku nadiifinayso ood ku barakaynayso waxaa sadaqada ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku barakeeyaa maalka uu qofku haysto wamaa anfaqtum min shayin fa huwa yukhlifu qur-aankii baa inoo caddaynaya qofku wixii uu bixiyey bedel dhaqsaa inuu ilaahay siinayo oo beddelkaas mararka qaarkood waa laga yaabaa qofku inuu arkaba mararka qaarkoodna inay barakadu u badato marka waxaynu aad iyo aad ugu baahannahay beddelkaa ilaahay kamana maaranno sadaqada asraarta iyo xigmadaha ku jira waxaa ka mida waa tadfacu lbalaa ilaahay baa daraaddeed iyo sababteeda ayuu balaayada aynu ka baqayna inaga joojinaya oo dadka qaarkood balaaya haysato dhinacyo kala duwan ka haysata midna way soo socotaa labadaba ilaahay wuu ku maareeyaa oo uu ku hor joogsadaa marka maanta adiga arkayo caalamku way iska gargarirayaan in badanoo ka midii waa iska baqayaan laakiin waxyaabihii ay ku badbaadi lahaayeen dee ma hayaan oo ah inay maaragtay wadooyinkan khayr kale maraana islaamku uu farayo markaa rasuulku sala allahu calayhi wasallam xadiidkii xasankaa bayhaqi warinaya wuxuu ku yihi daawuu mardaakum bisadaqa sadaqada ku daweeya dadkiina buka markaa kolka qof inaga buko ehelka asxaabta ummadda waxaynu bixinaynaa gacantaynu furaynaayo waynu deeqaynaa marka aynu wax ka baqaynana wax bixintaynu badinaynaa markaasaa ilaahay uu balaayadaa soo socotay inaga joojinaya marka waxaynu isku daraynaa deeqdii iyo ducadii ilaahayna waynu baryaynaa oo ducadaynu badinaynaa deeqdiina waa badinaynaa marka taasi waxay sabab u noqonaysaa sidaa waxyigu ina farayo wixii aynu ka warwarsanayne xanuunkan aadka adduunyada ugu batay iyo wixii la mid ah iyo wax kaloo aynaan dee garan ilaahay inuu ogyahay ayaa ilaahay uu naga badbaadinaya subxaana wa tacaala waana arrin aynu aad iyo aad ugu baahannahay asraarta ku jirta waxaa ka mida ducada malaa'igtaynu ku helaynaa oo had iyo jeer malaa'igtuna markay duceeyaan ilaahay baa aqbala marka malaa'igta ducadeeda waxaynu ku heli karaynaa inaad wax bixiso nebi maxamed wuxuu inoo tilmaamay sala allahu calayhi wasalam xadiidkii saxiixa ahaa bukhaariyo muslim ku sugnaa maalin walba laba malag baa soo degayooo midi waa ducayeel ducun buu taagan yahay wuxuu leeyahy allaahumma acdi munfiqan khalafa ilaahayow qofka wax bixiya bedel khayr qabasii midina habaar buu la taagan yahaa wuxuu leeya ilaahw ka wixiisa haysta dilsii dhimasho ma isagaa dhimanaya ma xoolihiisaa dhimanaya intuba way dhici kartaa sadaqad walaalayaal waxaad iyo aad u qiimo badan weeye sacaada nafsiya baa ku jirta sacaada nafsiya oo dadku waxay wada doonayaan raaxo waxyaabuu qofku raaxada ku helaya waxaa ka mida inuu wax bixiyo gaaliya islaam baa arrintaa way ka markhaati kaceen oo inuu waajibkiisii gutay dadka uu ka farxiyey wuu ku mafsuudaya xusnul khaatima baa ku jiro ilaahay khaatimadu qofka ugu wanaajinaya waa sabab linusuuli lamdaar inuu madar badan aynu helno iyo roob badan waynu ku helaynaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahy irxamuu man fi lardi yarxamkum man fi samaa ilaahay si uu idinku naxariista idinkuna dadka dhulka ku sugan u naxariista cimrigaa ilaahay uu ku kordhiyaa oo uu ku barakeeyaa markaa dee cimriga aad haysataa waabuu iska kooban yahay laakiin waxyaabuu ku barakoobi karo waxbixintaa ka mid a walaalayaal sadaqadu way sii kala duwan tahay waxaa jira wakhtiyo ay fadli badan tahay iyo cid ay ku fadli badantahay waxay ku fadli badan tahay ehelkii in la siiyo dadkii qaraabada ahaa waxay ku fadli badan tahay jaarkii in la siiyo waxay ku fadli badan tahay wakhtigay baahidu aad u badan tahay sida imikoo kale oo duruuftu adag tahay in la bixiyo sadaqadu waxyaabaha ay ku sii fadli badan tahay waxaa ka mida arrimaha aynu sheegnay ilaahay baa markuu ka warramayey sadaqada qiimaha badan iyo axwaashaa aynu soo sheegnay waxau idhi falaqtaxama alcaqaba wamaa adraaka ma alcaqaba faku raqaba aw idcaamun fii yowmin dii masqaba yatiiman daa maqraba aw miskiinan daa matraba qofku muu caqabadan hor taalla ama karintan uu ka gudbo shayddaanku uu hordhigay taasina waxa wey waxbixintii la bixinaya maalin gaajadu ay badan tahay la siinaya dadkii agoonta ahaa ee qaraabada ahaa ama qofkii baahnaa ee dhulkana goglanaya cirkana huwanayay baahi daraaddeed marka waxaad arki karaysaa in qur-aanku cid gaarah iyo wakhti gaara u calaamadiyeen sida maanta oo kale marka waxaynu walaalaheen ku dhiirigelinaynaa meel walay joogaan dabadiyo gudaba inay gacanta furaan qofku wixii uu markii hore ugu talagalay waxbixintana inuu waxbixiyana uu ka sii kordhiyo
si accountka ilaahay meel weyne uga dhacdo miisaanna ay u yeelato la iskuna biiriyo waxay badataa marka la isku biiriyo kolkaasay miisaan yeelanaysaa jazaakum ullahu khayran ilaahayna waxaan ka baryayaa waxaynu bixinayno inuu inaga badbaadiyo waxaynu ka baqayno waxaynu haynana uu inoogu barakeeyo aadna waa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاه الله خير إلهي سبحانه وتعالى الشيخ كابانيو wuxuu inagala hadlay oo uu inoo faahfaahiyey sadaqada iyo bixinta iyo fadliga ay leedahay qaybaheeda fawaa'ida ay leedahay xikmadda iyo ahdaafta islaamku u jideeyey sheekh maxamed ilaahi subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka ku saaro waxaa jira dad fara badan oo maal saka goysa haysta laakiin laga yaabo inay leeyihiin wakhtigii sakada aanu bixin lahayn may gaadhin ama xawlkii umuu soo wareegin ma bannaan tahay qofku sakadiisa inuu soo qadimo wakhtiyadka maaragtay dhibaatooyinka iyo howluhu ay jiraanna uu ku beego alxamdu lilaah wakhtigan oo kale aad bay muhiim u tahay in sakada la qadimo oo wakhtigii uu qofku bixin lahaa uu ka soo qadimo waa mas'alo culimmadu ay u badan yihiin inay sidaas bannaan tahay waxay deliishanayaan nebi moxamed sala allahu calayh wasalam oo sakadii adeerkii cabbaas ka qadimay cabbaas laftiisuna inuu qadimaabuu codsanayay uu nebiga ka codsanayay sala allahu calayh wasalam aharkaas ama xadiidkaasina waa xasan weeye darajadiisi waa la deliishan karayaa marka maadaama wakhtigii nebigaba ay dhacday in la qadimo waa la qadimi karayaa wakhtiganna aad bay u habboon tahay mararka qaarkood ganacsatadu waxay sameeyeen xisaabta la dheeraato markaasay dibdhigaan intaad dibdhigi lahayd waa inaad buug u furtaayoo aad baahida adigoo daboolaya sii qadintaa walow inteeda badanba ha ahaatee kol haddii xoolahaagu ay sakagal yihiinoon wakhtigii ay ku sakoobayeen ay gaadheen in la qadimo waa la qadimi karaa waanay fiican tahayba si baahidan loogu daboolo wakhtigan taagan jazaak allahu khayr ilaahay subxaana wa tacaala ka abaaliyo dad badan baa sheekh maxamed waxa laga yaabaa inay cabsi badan hayso oo ama xagga raashinka ha noqoto ama xanuunadan iyo dhibaatooyinkan la sheegaya ha noqoto oo ay kaydsanayaan raashinkiioo xaggii waxbixinta cabsi badan ay jirto maxaad u soo jeedin lahayd dadka bakhaarada iyo saxmad badani ka jirto waxyaalo badan baa la sheegaya maxaad tala ahaan u soo jeedin lahayd dadka cuntada kaydsanaya aan laga yaabo inaanay bixinayn midi waa xaaraanoo qofku inuu ixtikaar sameeyo ganacsadaha waa ka xaaraan nebiguna wuxuu tilmaamay qofka muxtakirka ah ee xoolaha wixii loo baahnaa raashinkii iyo quudkii kaydinaya en dadka ka iibinaya ilaa intuu aad u qaaliyoobay inuu khaadiye qof dembiile ah marka waxay waajib ku ah dadka ganacsatada inay u furaanoo waxay ka iibiyaan dadka wixii loo baahnaa raashinkii sharaabkii shidaalkii dawadii waxyaabahaasoo dhan aad loogu baahan yahay waxaa kaloo iyaduna jirta warwarka in layska yareeyo mar haddii raashinkii noo yaallo dadkan iyaguna intay kuyuga galaan wuxuun boobaya odhanaya balaaya dhacaysa kol haddii dee wax walba aynu haysanno ganacsatadii noo soo awaaridayso iyadana halaca iyo warwarkaa badan in la iska yareeyo dee xaalad abuur aan la noqonin markaa dadkii wax iibsanaya dadkii wax iibinaya labadaba taladaasaynu siinaynaa qofka isagu kay dhigtayna ee ka mida ummaddana hadhowta haddii ay dhacdaba raashinku inuu jaarka iyo ka dhammaada ehelka dee inuu isaguna wax siiyo amaba sii amaahiyo haddii aanu markaa siin karayn labada qoloba taladaasaynu siinaynaa baarak allahu fiikum wajazaakum allahu khayr ilaahay subxaana wa tacaala haynagu anfaco dardaaranada ay culimmadu inoo dardaarmeen cilmigoodana ilaahay subxaana wa tacaala mid naafica ka dhigo waxaynu intaa ku soo khatimi doonaa insha allahu tacaala kulankeenii aynu kaga hadlaynay waxbixinta iyo culayska oo la yska dulqaado waxaa marti inoogu ahaa sheekh maxamed sheekh cumar diriir iyo sheekh cabdiraxmaan axmed jazaakum allahu khayr wabaarak allahu fiikum